hawlwareennada hawshan inoo wada ka qaybgalayaasha ka kala yimi hay'adahan badwadaagtana dowladda Somaliland haday tahay biyaha kalluunka hay'adda ka hortagga aafooyinka xoolaha iyo saraakiisha kala hawlwareennada ka socota wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada horta shir hawleedkan aad baan idinku soo dhaweynaya wuxuuna taxanayahay uu daba socdaa shirkeenii kale aynu shalay u fadhinay halkan isna muhiimka ah oo runtii dad badan oo aqoon loo khubaro aanay la joogeen nuxurka shirkan maanta halku fadhinay waxa weey uu ku saabsan yahay waxaan la yiraahdo yoolasha waara ama sustainable development goals-ka sideeba deegaankii oo ogtihiin inay ku jiraan dhaqaalihii inay ku jiraan siyaasadii inay ku jiraan caafimaadkii bal arrimihii deegaankii 17 ka yool sidii deegaanka institution structure-ka aynu qaybteena ama aynu suuragalba u tahayba in capacity-geena kor loo qaado si markaa yoolasha wixii inaga quseeya inkastoo isku wada xiran yihiin la gaadho tababarkan mawduuciyo muhiim ah ayuu runtii ku fargarayn doonaa idinkana runtii naafacay hadda si fiican u dhugataan toobiyadaasi mid kastaba qiimihiisu leeyahay ama ha noqdo sidii loo ilaalin lahaa waxyaabaha markaa ecosystemska ah ee dhulka ilaahayna siiyay aynu leenahay markaa waxa la yiraahdo kaymo ah sare kaymeedyada haday tahay dhulka rangeland-ka aynu leenahay dhul daaqsimeedkeena haday tahay ilaahay khayraadka aynu siiyay badda ku jira iyo xoolaheena intaba waxay u baahan tahay ilaalinteedu hab istiraatijiyadeed oo qorshe waxaynu ka hadlaynaa strategy marka laga yimaado strategy-gu hadii jeer marka dhisayo waxba la tixgelinaya oo arinta ayada ah gundhig u noqonaya casharkan maanta gundhigiisu waxa uu noqonaya waxa weey sideebaynu yoolasha uga midho dhalin karnaa inaynu gaarno isla markaana awoodii nidaam iyo dawladeed ee xafiiska ama structure ee maamul capacity-gii hawsha lagu qaban lahaa kor loogu qaadi lahaa iyadoo taa la tixgelinayo waxay la tahay inay arrin muhiim ay tahay haddii markaa ilaahayba kama dhigayno arrinta ayada ah gaari weyno ama ay sidii la doonayo inuu u dhici waayaan arrintaas runtii waxay keenaysaa saameyn xun ayay ku yeelanaysaa hadday tahay caafimaadka iyo hadday tahay nolosheena guud ee bini'aadamka waayo waxaan oo dhami hawadaasi aynu maanta helayno quruxda badan ee haddii deegaankeena aynu ilaalin weyno waynu ugu yaraanaysa oxygen-taas waynu ugu yaraanaysa marka waa inaad markaa maanka iyo maskaxda ku hayna haddaynu waxaas aynu sida laydinku sharxi doono aynu u tixgelin weyno inay saameyn runtii xun oo aan wanaagsanayn ay ku yeelanayso wuxuu baan anigu hadalkay ku soo ururinayaa hadal badan waqtiga naga habsaamay runtii inuu naga habsaamana ma ahayn hawshan hore u bilaabanaa bay ahayd waa waqti baynu u socdaa inaynu cashir ka faa'iideysano si degan u dhageysano wixii had iyo jeerna su'aalaha iyo discussion-kana aad badisaan waayo aqoontu dadku bay ku dhex jirtaa wax meel fog ka yimaada maaha markan aynu joogno shir hawleedkeenan iyo tababarkani wuxuu ku saabsan yahay hirgelinta yoolasha waara qaybta deegaanka la xidhiidha yoolasha waara waxa sameysay qaramada midoobay ururkan qaramada midoobay waa 17 yool oo ka eegaya xagga dhaqaalaha dhibaatooyinka inaga haysta dhibaatooyinka xagga deegaanka dhibaatooyinka xagga maxaan raadaya siyaasadda ah marka maanta waxaynu joognaa halkan in lagu tababaro wasaaradda deegaanka iyo wasaaradaha bahwadaagta la ah ee ka shaqeeya natural resource management-ka ama maamulka khayraadka dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin wasaaradda deegaanka wasaaradda biyaha NADFOD wasaaradda xoolaha wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qorsheynta marka intaas oo wasaaradood oo wada shaqeyn leh oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka buu khuseeyaa oo lagu tababarayaa sidii ay u ogaan lahaayeen mid walba wasaarad kasta qaybteeda